bismillaahi raxmaani raxiim wacano wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show wararka ugu waaweyn ee caalamkan xilligan kula wadaagi doonna waxaa ka mid ah shacabka itoobiyaanka saqiir iyo kabiir waxay qaadi doonaan hubkooda oo waxaa ku amray ra-iisul wasaaraha itoobiya gacantii baqanaysa ee ra-iisul wasaaraha itoobiya ku taalla oo u muuqata markaan inay bannaanka u soo baxayso ku soo dhowow maracadda show waad ku mahadsantahay inaad ka mid tahay saaxiibada nagu xidhan dhowaanna waxaan filaynaa inaan bilaabi doonno barnaamijyaal taxana ah oo tarjumaadeeda ay socoto waan idinkaga mahadcelinayaa inaad ka mid tahiin saaxiibada nagu xidhan ee na dhiirageliya mar walba aan ku horumarno wararkii ugu dambeeyey ee itoobiya ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya dr abiy axmed ayaa wuxuu baaq degdega u diray guud ahaan shacabka itoobiyaanka taasoo ku aadan inay ku biiraan dagaalka ka dhanka jabhadda tblf kaasoo ka soconaya gobollo kala duwan ee ku yaala dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ee itoobiya ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya dr abiy axmed ayaa guud ahaan shacabka dalkaasi ugu baaqay inay hubkooda ay qaataan isagoon u kala saarin saqiir iyo kabiir laakiin waxauu ahmiyadda koowaad uu siiyey dadka gaaray da-da ciidanka baaqiisan oo maalintii shalay uu jeediyey ninkani ku guulaystay abaalmarinta nabadda dunida masar abiy axmed wuxuu ka dambeeyey kadib markii dowladda ay bishii juun ay ku dhawaaqday xabajoojin hal dhinaca oo dhinacyada la dagaalamaya dowladda itoobiya u muuqatay inaanay qaadan baaqaasi xabajoojinta waana dhinaca tigreega kuwaas oo kasoo horjeeda guud ahaan qowmiyadaha kala duwan ee ka dhisan gudaha dalka itoobiya xilligan waxaa la joogaa wakhtigii kama dambaysta ahaa oo guud ahaan shacabka itoobiyaanka ee gaaray da-da ciidanka ay ku biiri lahaayeen hanaan difaaceedka qaranka ee dalka itoobiya sidoo kalena qayb ay kaga noqon lahaayeen ciidamada difaacaya qaranka itoobiya si gaar ahaaneed waxaa la joogaa wakhtigii ciidamada gaarka guud ahaan shacabka maleeshiyaadka iyo sidoo kale dadka ciidanka da-dooda gaaray ayna tusi lahaayeen garab istaagooda sidaas ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya dr abiy axmed waxaa muuqanaysa markaan dulqaadkii inuu ka dhammaaday ra-iisul wasaaraha itoobiya uunu si dadban u bixinaya amarka kama dambaysta ee ku aadan in dagaalka la galo qabaa'ilka oromada ayaa dhowaan waxay shaacay ka qaadeen dhankooda inay diyaara u yihiin dagaal ka dhanka ah jabhadda tigreega waxaana madaxweynaha oromiya uu sheegay in la joogo wakhtigii kama dambaysta ahaa ee dagaalka lala geli lahaa jabhadda tigreega loogana xoreyn lahaa gobollo dhowra oo dalka itoobiya ku yaal ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya dr abiy axmed ayaa ciidanka federaalka ee itoobiya wuxuu u diray gobollada ku yaala dhanka waqooyi ee gobolka tigreega bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay xilligaasoo dagaal adag ay la galeen jabhadda tblf ee ka dagaalamaysa deegaano ku yaala waqooyiga itoobiya waxaana ra-iisul wasaaraha uu sheegay wakhtigan in la joogay xilligii gebi ahaanba la iska saari lahaa boog uu sheegay inay qayb ka mid a jirka itoobiyaanka ay ku taalo arrinta waxay ku soo beegantay iyada oo jabhadda tblf guulo la taaban kara ay ka gaartay 24kii saaci lasoo dhaafay dagaallo ka dhacay deegaano ku yaala waqooyiga itoobiya gaar ahaana gobolka amxaarada iyadoo ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya hadalkaasi uu jeediyey ayaa haddana wuxuu ku soo beegmayaa saacado uun kadib markii hogaamiyaha jabhadda tblf dabratzion jabre mikail uu shaaca uu ka qaaday in ay ahmiyadooda koowaad ay tahay in nolosha ay ku qabtaan ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya sidoo kalena gacanta ay ku dhigaan magaalada adis ababa waxaa kaloo ay sheegeen in marnaba aysan aqbali doonin xabajoojinta halka dhinaca inta laga fulinayo ilaa 6 shuruudood oo ay soo bandhigtay jabhaddaas hadalka kasoo yara ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya ayaa kusoo beegmaya sidoo kale saacadoon kadib markii dad canfara lagu xasuuqay cisbitaal ku yaala deegaanada gobolada canfarta dhaca waxaana dadkaasi la sheegay ku dhowaad inay 12 ruux ay gaarayeen kuwaasoo qaarkood cisbitaalka iyaga oo ku sugan halkaasi lagu dilay tirada guud ee dadka waxyeelada soo gaartay waxaa lagu sheegay 46 ruux ku dhowaad 75 kalena waxaa la sheegay in rasaas ay haleeshay kuwaasoo qaarkood baxsaday canfarta soomaalida amxaarada iyo oromada iyo sidoo kale tigreega ayaa siyaabooyin kala duwan ugu dagaalamaya gudaha itoobiya waxaana itoobiya u muuqanaysaa markan in dagaalada ka socda ay kusii baahayaan deegaano kale oo dhowra ra-iisul wasaaraha itoobiya dr abiy axmed hadalkiisa ku aadan guud ahaan shacabka itoobiyaanka inay qoryaha ay qaataan waxay ka dhigan tahay markan inuu galka kala baxay seeftiisa mar haddii muddooyinkii ugu dambeeyey indhaha uu ka eeganayay gulihiis dabajoogka ahaa ciidamada tigreega ay gaarayeen gaar ahaan markii gacanta ay ku dhigayeen magaalada laalibeela iyo magaalada kale ee woldiya halkaas oo si buuxda ay ula wareegeen kadib markii sida la sheegay ciidamada soomaalida ee halkaasi isaga carareen iyo kuwii kale ee halkaasi ku sugnaa qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada dagaalada itoobiya ku saabsan waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa boqortooyada sacuudiga markaa itoobiya
dalka Itoobiya oo Soomaaliya diris ay yihiin marka la eego deegaanada dhanka xuduudda dhaca ayaa hadda waxaa lagu waramayaa in qalalaasaha ka socda iyo hadallada ka soo yeeraya dhinacyada dagaalamaya inay usii horseedi karaan burbur xoogan oo soo gaara dalkaasi Itoobiya. Waxaa lagu waramayaa Itoobiya in hadda ay qaadayso wadadii Soomaaliya ay ka soo kabatay tan iyo sanadkii 1991. Itoobiya waxay shaacay ka qaaday in laga laabtay guud ahaan xabad joojintii halka dhinac ahayd oo ay dabcan hore u soo sheegtay bishii Juun, taas oo ay gebi ahaanba kooxda ka soo horjeeda dowladda Itoobiya ee TPLF ay gebi ahaanba ka gaabsatay inay ka hadasho shuruudo ka adagna xabajoojintaasi in iyada ay soo dhigtay. Dadka dhallinyarada ah waxaa loogu baaqay in ay ciidanimada ay qortaan, waxaana wadaadada diinta faafiya ee dalkaasi ku sugan gebi ahaanba laga dalbaday in ay ducada ay ku kabaan ciidanka. Odayaasha dhaqanka sidoo kale waxaa laga dalbaday taakulo inay sameeyaan, sidoo kalena tala ayaa laga codsaday inay siiyaan ciidamada ammaanka ee dowladda Itoobiya. Sida muuqata marka Itoobiya waxay u jihaysatay jidkii ay Soomaaliya soo martay sanadkii 1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka, taas oo ka dhigan in Soomaaliya hadda ay ka soo kabanayso guud ahaan waxyaabihii ku dhacay Itoobiya. Hadda ay u muuqanayaan in dadka shacabka ah uu qoryaha gacanta u galayo. Mar haddii ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya uu ku dhawaaqay in dhammaan dadka ay qoriga ay qaataan si ay ula dagaalamaan jabhadda TPLF, waxay ka dhigan tahay in shacabka guud ahaan uu gacanta u geli karayo hubka noocyadiisa kala duwan. Taasi waxay horseedi karaysaa in ay argoosi xun iyo xasuuso ay dib ay u galaan, dagaalo kalena ay dhex maraan dhinacyada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya dadka ku dhaqana. Haddii marka Itoobiya dadka ay u gacan geliso hubka, dhibaatooyin adag ayaa ka dhalan karaya. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa waxay sheegayaan in tani aynay sahlanaan doonin, laakiin dowladda Itoobiya ayaa hadda looga fadhiyaa inay si weyn uga baaraan degto oo ayna u qorsheyso qaabkii ay hubka u qaadan lahaayeen guud ahaan dadka halkaasi ku nool, gaar ahaana dadka qabaa'ilada ah oo haddii hubkan uu gacanta u galo saameyn kale ama dhibaato kale ay ku geysan karaan. jabhadda Tigreega ah ee ka soo jeeda qowmiyadda lagu magacaabo Tigray ayaa dagaalka uga adag lala geli doonaa, sababtoo Tigreega muddo badan ayay waddanka maamulayeen, waxaana la rumaysan yahay in xilligaasi ay hub tiro badan ay gacanta ku dhigeen Tigreega markii hoggaanka ay u hayeen dad ka soo jeeda qabaa'ilkaasi. Ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya oo si aad uga soo horjeeda Tigreega caqabado badanna la kulmay ayaa 8 bilood ka hor weerar wuxuu ku qaaday magaalada Maqale ee caasimadda ismaamulka Tigreega. Guul ayuu ka gaaray dagaalkaasi, laakiin muddo kadib waxaa muuqanaysa in Tigreegii ay dib ay u soo hub qaateen, dagaal adagna ay ku qaadeen magaalada Maqale oo gacanta ay ku dhigeen. Magaalooyin kale oo ka baxsan deegaanadoodii ayay sidoo kale Tigreegii gacanta ay ku dhigeen. Hadda dagaalku waa sii xoogeysanaya. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmedna wuxuu ku baaqay guud ahaan shacabku inay hubka ay qaataan. taasi waxay noqon kartaa inay Itoobiya caqabad adag ay la kulanto haddii dowladda aanay si kale aysan u maaraynin. Bishii November ayuu dagaal ka dhex qarxay ciidanka federaalka ee Itoobiya iyo xoogag ka tirsan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ah oo xukumayay Itoobiya muddo 30 sano ka badan, haddana gacanta ku haya gobolka Tigreega. Dowladdu waxay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca 28 bishii Juun kadib markii ciidanka Tigreega ay ciidamada federaalka ee Itoobiya dib ay uga qabsadeen magaalada madaxda gobolkaasi ee Maqalla, waxaana ay sheegeen xabad joojinta inay tahay sababa bini'aadanimo inana looga sii darin dadka ku nool deegaanadaasi. Waqti beereedyada Itoobiya waxay bilowdaan bilaha Juun ilaa bisha September oo hadda maalmo oo qura ay ka dhiman tahay, waxaana socda diyaargarowga ay dowladda ugu jirto inay dib ay u bilowdo dagaalka ay kula jirta TPLF. Waxaa caddaatay in beeraleyda Tigreega aysan si ammaan ah aysan u beeran karin haddii dadka Tigreega aysan weligood aysan iska dhex saarin kooxaha argagixisada. Sidaasi waxaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Toddobaadadii la soo dhaafay dagaalka waxa uu ku fiday gobolada Amxaarada iyo Canfarta oo ku dhow gobolka Tigreega, waxaa ku barakacay in ka badan 170,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay. Qiyaastii 4 milyan oo qof oo ku nool gobolada Tigreega, Amxaarada iyo Canfarta ayaa wajahaya xaalad adag iyo dhibaatooyin cunno yari ah sida ay sheegtay qaramada midoobay. Xaaladdan iminka waa ay ka sii daraysaa. waxyaabaha ka soo kordha xogeheena dambe ayaan ku ogaan doonaa.